أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي ولالكن أنا من حسن وحاتو soo dhawaatin kanaalkana muuqaal production insha Allah maanta barnaamijkeena hadii aan waxaan rabaa inaan kula wadaago programkan lagu magacaabo Filmora X featureska update-ka uu leeyahay ayaan rabaa maanta inaan kula wadaago marka version 9 hadii aad isticmaashid Filmora 9 ma helaysid featureskan update gareyso oo ka dhigo Filmora X ama la soo deg si aad u heshid featureska update-ka uu leeyahay marka Filmora X waxaan rabaa marka afar qodob inaan ku soo koobo muuqaalkan aan ku sharxo qodobka koowaad waxa waaye motion track sidoo kale qodobka labaad waxa waaye keyframe sidoo kale qodobka saddexaad waxa waaye color qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabagabayn doono barnaamijka wuxuu noqon doonaa qodobkeena afraad keyboard shortcut ayuu noqon doonaa marka waxyaabaha ay yihiin qaabka loo sameeyo oo gudgali doonaa insha Allah hadaba si afartan qodob aynu fahanno aynu gudgalno barnaamijkeena fiiri saaxiib maxaa ku dhacay oo ku jeeda muuqaalku waa daawanaysaa weli like ma saarin fadlan muuqaalka like saar aad u mahadsan tahay ugu horreyn qodobkan ugu horeeya oo ah motion track si aan u fahanno muuqaalkan aynu isla wada daawano muuqaalkan u jeedin originalkiisa waxa iska leh walaalkan Hoosow ayaa iska leh marka motion track si aad u fahantid qofka meesha taagan waa Hoosow waxaan ku dul qoray marka motion track waxa waaye objectigaaga ama sheegaaga inaad shay kale aad dul saartid aad la dhaqaajisid marka si aad u fahantiin motion track muuqaalkan aynu wada daawano waad u jeedinayaan filayaa qoraalkan hadda Hoosow waxaynu ku dul sameynay motion track aynu ku dul sameynay oo muuqaalkiina uu socdaa qoraalkiina uu la socdaa marka motion track sidaan aan lahaa waxaad sameyn kartaa marka motion track sawirooyin aad ku sameyn kartaa sidoo kale video aad dul saari kartaa meeshaad u baahan tahay kadib motion track aad ku sameyn kartaa qoraal aad ku sameyn kartaa marka si aan u sameyno motion track clipkan ayaan drag and drop ku soo sameynaya clipka hadda markaynu daawano oo kale ma lahan wax motion track waad u jeedin ayaan filayaa marka qoraal ayaan rabnaa inaynu ku dul sameyno Hoosow meesha taagan motion track inaynu ku dul sameyno ayaan u baahannahay sidoo kale qoraal ayaan soo dooranaya waad u jeedinayaan filayaa saaxiibayaal waxaan soo diyaarsay qoraal ay ku qoran tahay Hoosow marka qoraalkan aan u baahanahay inaan ku sameeyo motion track anigoo isticmaalaya Filmora X marka qoraalka hidden ayaa iska saaraya marka clipka aad u baahantahay inaad ku sameysid motion track ee dushiisa aad imaanaysaa kadib waxaad sameynaysaa double click aad siinaysaa sidoo kale waxa ku soo furmi doona marka video audio color iyo animation waxaad dooranaysaa marka qaybtan ay ku qoran tahay video ee dooranaysaa sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa qodob ay ku qoran tahay motion track kadib qodobkan jeegan aad soo furaysaa sidoo kale meeshan tick saar waxaad sameynaysaa marka qaybtan u soo laabo shaashada box ay ku soo furmi doona calaamad plus ay dhaxda ugu taasho meeshaad u baahan tahay inaad motion track-gaada shaygaad u baahan tahay inaad tracking aad ku sameysid ayaad dul saaraysaa marka waxyaabaha tracking-ka aad ku sameyn kartid waxay noqon karaan ama aad dul saari kartid oo kale muuqaalo sawiro ama qoraalo waxyaabo noocaas ay noqon doonaan marka anaga aad waxaynu sameyn doonaa qoraal aynu sameyn doonaa marka boxigaada size-ka aad u baahan tahay oo kale waxaad sameyn kartaa geesaan inaad imaatid oo aad ka soo kala yareyn kartaa kadib meeshaad u baahan tahay inaad tracking aad ku sameysid ayaad dul keenaysaa waxaad sameynaysaa marka qaybtan aad u soo laabanaysaa waxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay marka start tracking ayaad ku dhufanaysaa si uu u raaco Filmora X meeshaad u baahan tahay tracking uu ugu sameeyo waxaan ku dhufanayaa marka meeshan ay ku qoran tahay start tracking tracking markaan ku dhufto waad u jeedinayaan filayaa process ayuu sameynayaa oo wuxuu sameynayaa marka Filmora X meeshii ayuu raacayaa kadib waxaa soo diyaarsanaysaa marka shaygaad u baahan tahay tracking-ka inaad dul saartid aniga hadda qoraal ayaan soo diyaarsay qoraalkayga waxaan ku sameynayaa marka size-ka boxiga ayaan la ekaysiinayaa gudaha boxiga ayaan gelinayaa qoraalkaaga sidaan oo kale marka gudaha u geli sidoo kale waxaad sameynaysaa marka waxaad u soo laabanaysaa qaybta tracking-ka aad u soo laabanaysaa motion track aad u soo laabanaysaa meeshan ay ku qoran tahay none ayaad soo furaysaa boxigan waxaad ka dooran kartaa marka anaga aad waxaynu isticmaalaynaa qoraal waxaynu ku dhufanaynaa marka default title aynu ku dhufanaynaa marka haddii aad isticmaalaysid waxyaabo sawirooyin iyo waxyaabo videoyaal waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay import from computer ayaad ku dhufanaysaa ama waa soo diyaarsanaysaa aniga hadda qoraal ayaa ii diyaarsan marka qoraalkan aan u baahanahay inaan tracking aan ku sameeyo Hoosow qaybtan waxaan ku dhufanayaa marka default title ayaan ku dhufanayaa okay ayaan leeyahay okay markaan dhaho Filmora X hadda wuxuu sameynayaa marka qoraalkeena ayuu wuxuu ku sameynayaa Hoosow meesha taagan tracking ayuu ku sameynaya marka hadda aynu wada daawano waad u jeedinayaan filayaa saaxiibayaal marka qaabkan ayaad u sameyn kartaa adigoo isticmaalaya programka Filmora X motion track waxyaabaha lagu soo kordhiyay ay kamid tahay featureska uu leeyahay programkan Filmora X marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iideysan doontiin insha Allah aynu gudgalno qodobkeena kale xigo qodobkeena labaad aan rabo inaan ka hadlo oo programka uu leeyahay Filmora X ama featureska labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye keyframe marka keyframe si aynu u sameyno ugu horeyn muuqaal ayaan soo doortay keyframe-ka waxaad sameynaysaa marka muuqaalkaaga ee double click siinaysaa si aad keyframing aad u sameysid
kadib waxaad imaanaysaa qodobkan ay ku qoran tahay animation aad imaanaysaa animationka markaad imaatid sidoo kale qaybtan waxaad ka dooranaysaa customka aad ka dooranaysaa keyframeka waxyaabaha lagu soo kordhiyay ayuu ka mid yahay programkan Filmora X sidoo kale muuqaalka xoogaa aan soo yara weynaayo si aad si fiican aad ugu wada fahantiin dhamaantiina marka keyframe si aan u sameeyno meeshan waxaynu ku haysanaa box ay ku qoran tahay add waxaan ku dhufanayaa marka add-ka aan ku dhufanayaa meeshan markaad fiiriseen waxa ku soo darsamay muuqaalkeena gudihiisa calaamad dhibic ay ku soo darsamtay waxa loo yaqaanaa keyframe ayaa loo yaqaanaa sidoo kale xoogaa yar ayaan ka soo durqayaa muuqaalka meelaha camal marka imaado waxaan rabaa marka keyframe-ka si aad si fiican aad ugu fahantiin qofka meesha taagan ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo sidoo kale calaamad kale oo plus ayaan sameynayaa hadda muuqaalkeen waxaan noo sameeyay marka keyframe start point iyo sidoo kale end point laba dhibcood meeshan ayuu ka bilaabanayaa meeshan wuu ku dhamaanayaa meeshan waxaynu ku haysanaa marka rotate aynu ku haysanaa rotate-kan waxa waaye muuqaalkaada aad ku gedgedin kartaa xoogaa markaasaan dhaho kale waad u jeedinayaan filaya muuqaalka aad ku wareejin kartaa marka rotate hadda ma isticmaali doono sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa scale waxa waaye muuqaalkaaga waad ku soo dhaweyn kartaa waad ku fogeyn kartaa labadan option aad u isticmaali kartaa sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa position x y ama left iyo right haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad u wadido kale sidaan aad u isticmaalaysaa sidoo kale meeshan kalena qodob kale waxaynu ku haysanaa opacity waxa waaye muuqaalkaaga aad waxaad ku sameyn kartaa iftiinkiisa mugdi aad ka dhigi kartaa amase fullka ayaad u dayin kartaa almost hadda waxaynu sameynaynaa marka keyframe-kan dhexda marka aynu iska delete gareyno marka start point end point aan kala haysanaa meel ka bilaabanayo marka meeshuu ku dhamaanayaan imaanaya keyframe-ka waxaan sameynayaa marka scale-ka oo kale muuqaalka xoogaa ayaan soo yar dhaweynayaa si aad u wada fahantiin keyframe-ka qaabka u shaqeeyo kadib position-ka aan xoogaa yar saxayaa muuqaalkeen hadda markaynu daawano oo kale fiiri keyframe-kan hadda waxyaabaha uu sameynayo play aan dhahayaa waad u jeedin ayaan filayaa muuqaalkeena hadda markuu inta ka bilaabana ilaa inta waxaynu sameynay marka muuqaalkeena aynu soo dhaweynay marka keyframeska qaabkan aad u isticmaali kartaa hadda positionkiisa aynu ku celino muuqaalkan anagoo isticmaalayna scale-ka ayaan waxaan leeyahay undo ayaan leeyahay hadda muuqaalkan aynu wada daawano play and dhaho waad u jeedin ayaan filayaa saaxiibayaal marka keyframe-ka qaabkan aad u isticmaali kartaa marka Filmora X-ga waxyaabahan ku arkay muuqaalkaaga markuu soo dhawaanayo kale xoogaa shuca ayaad ka dareemaysaa laakiin markaad boos aad aadid ama istaajisid nadiif ayuu noqonayaa marka waxyaabahaas kuma saameyn doonaan marka keyframe-ka adigoo isticmaalaya programka Filmora X qaabkan aad u isticmaali kartaa zoom in zoom out kan kaligiis uma isticmaali kartid oo positionadan waad isticmaali kartaa rotate waad isticmaali kartaa opacity waad isticmaali kartaa marka muhiimaddu waxa waa inaynu fahanno keyframe-ka wuxuu yahay waxyaabaha loo isticmaalo waxaan rajaynaa marka saaxiibayaal inaad wada fahanteen featureskan labaad keyframe-ka wuxuu yahay sida loo isticmaalo aynu gudgalno marka qodobkeena saddexaad aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye color match ama featureska uu leeyahay programka Filmora X color match hadaba color match-ka si aynu u fahanno labada muuqaal ayaan waxaan ku sameynayaa import ayaan ku soo sameynayaa hadda labada muuqaal markaad fiirisiin colorskooda way kala duwan yihiin oo inta aad ka fiirisiin midkan hooso iyo midkan kale way kala duwan yihiin marka ugu horeyn marka si aan u sameyno color match muuqaalkaad u baahan tahay inaad colorkiisa aad koobiyeysid aad dhankan soo marinaysaa hadda kan hooso waxaanu u baahannahay inaanu colorkiisa aynu koobiyeyno muuqaalkan koowaad muuqaalkan labaad marka labada muuqaal colorskooda isku mid maahan colorska muuqaalkan ugu horeeyay waxaanu rabnaa muuqaalkan labaad inaynu saarno colorka muuqaalka koowaad waxaan rajaynaa color match-ka inaad fahanteen muuqaalkan colorkiisa muuqaalkan ugu horeey colorkiisa waxaynu u baahannahay muuqaalkan labaad inaynu isku color ka dhigno marka muuqaalkaad u baahan tahay colorka inaad saartid aad imaanaysaa kana aad ka qaadaysidna waxaad soo marinaysaa dhanka leftiga aad soo marinaysaa ama bidixda aad soo marinaysaa kan kalena midigta aad soo marinaysaa kana aad rabtid inaad saartid colorka kadib midkaad u baahan tahay colorka inaad saartid aad right click leedahay dushiisa waxaad ka dooranaysaa marka qaybta hoose color match aad ka dooranaysaa ama sidoo kale waxaad samayn kartaa shortcut adigoo isticmaalay alt plus m color match ayaan ku dhufanaynaa color match markaan ku dhufano qaybtan preview waxay noo soo furmay qayb ay ku qoran tahay reference iyo sidoo kale midka current-ga hadda aynu taagannahay marka match si aynu sameyno colorska labada muuqaal aynu isu dul saarno colorskooda qaybtan waxaynu ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay match si fiican u fiiriya labadan color hadda labada muuqaal isku color maya colorka muuqaalkan koowaad waxaynu u baahannahay midkan inaynu saarno
waxaan ku dhufanayaa marka meeshan ay ku qoran tahay match ayaan ku dhufanayaa marka programka wad u jeedinayaan filaa wuxuu sameeyay marka muuqaalkan ayuu colorkii ka qaaday wuxuu saaray kan ayuu colorkii saaray haddii aad u baahan tahay marka colorka midkan xoogaa haddii aad u baahan tahay inaad ka khafiifisid oo kale qaybtan levelka aad imaanaysaa 100% waa hadda xoogaa waad ka khafiifin kartaa wad u jeedinayaan filaa xoogaa haddii aad sii dejisid oo kale originalkiis ayuu ku soo laabanayaa marka meelahan oo kale aan ku deynayaa kadib okay aan ku dhufanayaa hadda labada muuqaal programka Filmora X wuxuu sameeyay color match ayuu sameeyay perfect 100% ma aha laakiin color match ayuu sameeyay hadda play markaan dhaho waad u jeedinayaan filaya muuqaalkan ayaa colorka laga qaaday midkan ayaa la saaray marka adigoo isticmaalaya programka Filmora X qaabkan aad u sameyn kartaa color match waxaan u gudbi doonaa qodobkeena ugu dambeeyo oo afraad aan rabo barnaamijkan aan kusoo gabagabay waxa waaye keyboard shortcut waaye keyboard shortcut-ka si aan u fahanno muuqaalkan aan drag and drop kusoo sameynayaa ugu horreyn marka waxaan ognahay haddii aad isticmaalaysid Filmora 9 ama sidoo kale Filmora X gan xitaa isticmaal haddii aad u baahan tahay muuqaal inaad kala jartid ama split aad rabtid inaad isticmaashid shortcut-ka waxa waaye control B waaye control B hadda markaan taabto oo kale split waaye marka waxaan u baahannahay xarfo noo gooniya inaynu samaysano anagoo isticmaalayno shortcut-ka marka keyboard shortcut-ka waxyaabaha uu leeyahay programkan Filmora X waxaad sameyn kartaa shortcut-ka default-ga waad iska bedeli kartaa waxyaabo gooni ah aad saaran kartaa marka keyboard shortcut-ka si aan waxyaabo badan aynu ugu bedelno oo waxyaabo noo gooni ah aynu ugu bedelano waxaad imaataa qaybtan ay ku qoran tahay file sidoo kale qaybtan hoose waxaad ka dooranaysaa keyboard shortcut aad ka dooranaysaa waxaynu u baahannahay sida default-ga inaynu iska bedelno waxyaabo noo gooni ah inaynu ku sameysano kadib qaybtan keyboard shortcut-ka markaad soo furtid daaqadan ay ku soo furmato qaybta marka waxaad u baahan tahay inaad bedeshid qaybta editing-ka maad u baahan tahay inaad wax ka bedeshid ama toolska ama view-ga ama markers-ka meelahan qaybtaad u baahan tahay inaad wax ka bedeshid ee imaanaysa ani hadda toolka aan u baahanahay inaan wax ka bedelo qaybtan waxaa ku qoran toolska split oo kale markii la kala jarayo muuqaal sida default-ga meeshan ku qoran waxa waaye control+b ani control+b ma u isticmaalay s bes aan ka dhiganayaa s kaligiis haddii aan taabto waxaan rabaa muuqaalkayga inuu kala jarmo marka waxaan rajaynayaa inaad guud ahaan aad wada fahantay keyboard shortcut-ka tusaalaan split oo kale s ayaan ku bedeshay kadib okay aan leeyahay muuqaalkayga dushiisa markaa imaado aan xoogaa zoom aan kusoo sameeyo dushiisa markaa imaado xarafka s markaan taabto wuu kala jarmaya muuqaalka waad u jeedinayaan filaya muuqaalka wuu kala jarmaya s kaligeeda ayaan taabanaya muuqaalka wuu kala jarmaya marka dhammaan keyboard shortcut-ka waad iska bedeli kartaa adigoo isticmaalaya programkan Filmora X marka waxaan rajaynayaa inaad wada fahanteen qodobkeena ugu dambeeyo oo ah keyboard shortcut-ka sida default-ga loogu bedelayo waxyaabo ku gooniya qaabka loogu bedelanayo insha Allah qodobkan ayaan kusoo gabagabeyn doonaa way jiraan waxyaabo badan oo features badan lagu soo kordhiyay afartan qodob ayaan waxaan u arkay inay aad muhiim u yihiin aan jeclaystay idinkana inaan la wadaago marka muuqaalka intaanan gabagabeyn haddii aad jeceshahay marka inaad baratid programka lagu magacaabo Filmora X waxaynu ka diyaarinay course dhammaystiran aynu ka diyaarinay course-kaas haddii aad daneynaysid inaad iska diiwaan gelisid qaybta hoose video description-ka waxaan kusoo dhigi doonaa link aad iska diiwaan gelisid ama haddii aadan description-ka aadan aqoon comment-iga ugu hore waxaan kusoo dhigi doonaa meel aad iska diiwaan gelisid insha Allah waxaan rajaynayaa inaad haddii aad daneynaysid aad is diiwaan gelin doontid aad ka faa'iideysan doontid course-gan dhammaystiran min bilow ilaa dhammaad aad ku baranaysid programka lagu magacaabo Filmora X walaalkiin Adam Nur Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh